maanta waxaan ka hadlaynaa qaybaha ay ka kooban tahay kacbada sharafta leh. Waxaan ku bilaabaynaa ugu horeyn tiirarka kacbada. tiir kasta oo ka mid ah tiirarka kacbada waxa uu leeyahay magac u gaar ah oo loo yaqaan. tiirka koowaad ar-ruknu sharqi ama tiirka bari ee deriska la ah albaabka kacbada, xigana dhanka biiru zamzamka. sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa ruknul aswad sababtoo ah xajarul aswadka ayaa ku dhex jira, waana tiirka uu dawaafku ka bilowdo. tiirka labaad ar-ruknu shamaali ama tiirka waqooyi waa tiirka tiir ahaan xiga tiirka bari xasba jihati alxarakati fi dawaaf marka laga eego dhanka dawaafku u socdo. sidoo kale waxaa loogu yeeraa ar-ruknu alciraaqi likownihi biitijaahi alciraaq, waana tiirka dhanka bari ka xiga xijru ismaaciil calayhi salaam, waana goobtan wareegsan oo aynu si gaar ah uga hadli doono. tiirka saddexaad ar-ruknu algharbi ama tiirka galbeed waa tiirka tiir ahaan xiga tiirka waqooyi marka laga eego jihada dawaafku u socdo. sidoo kale waxaa loogu yeeraa ar-ruknu shaami likownihi biitijaahi shaam, waana tiirka dhaca daanta galbeed ee xijru ismaaciil calayhi salaam. tiirka afraad ar-ruknu aljanuubi ama tiirka koonfureed waa tiirka tiir ahaan xiga tiirka galbeed marka laga eego jihada dawaafku u socdo. sidoo kale waxaa lagu magacaabaa ar-ruknu alyamani limuwaajahatihi bilyamani taqriiban. sidoo kale waxaa lagu magacaabaa ama loo yaqaana almustajaar. waxaa la sheegaa in cahdigii dowladii faatimiyiinta ay tiirkan ku kabeen masaamiir. sidoo kale sanadii 1040 hijriyada cahdigii sultaan muraad araabic waxaa la cusboonaysiiyey dhismaha kacbada, waxaana dhinac ka jabay rukniga kan loo yaqaano ar-ruknu alyamani, waxaana lagu kabay rasaas la dhalaaliyey. halkan waxaa inoo ku dhan dhammaan tiirarka kacbada iyo magacyadooda. waxaan ka hadli doonaa haddii alla idmo qaybaha kale ee dhiman ee ay leedahay kacbada barakaysan, sida waa maxay shaadirwaan, xijru ismaaciil, bi'ru zamzam, almiizaab, almultazam, maqaamu ibraahim, gudaha kacbada iyo wixii la halmaano. ugu dambeyn waxaan idinka codsanaynaa in aad muuqaalkan faafisaan si dad badan oo wanaaga jecel uu gaaro, annagana dhiirigelin noogu noqoto. waa mahadsantiin.